waxaan xabaaday ku nahay xiinkaaga maxaan necebahay waxaan xabaaday ku nacay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تنمانا وسلامتين ملك استوى جونك كجوكتان يوتيوب كان قدام نيسان ورمان أوفيشال صاد مانتا أركتان فنانا دها لمبرادة كوكورا مانتا 27 أغسطس هاي waxaan murugadii la qaybsanaynaa walaalkan Asad Hagio wada jeedaan maanta waxaan dhahay inay astaantii 27 August ee naga wada muuqata gabigeena marka waxaan halkan murugta iyo dhibaato ku dhacday la qaybsanayna walaalkeena Asad Hagio أصحابتنا هذا أقوم هسنتين ساد نروح بينو داوتان ندي ذا كله تمانتو حالك وتاجنا ولا تيجي تضبط أغسطس وعن لقب صدقنا مرقدة ولكن أسد حاجيو فنان ده أنا شيء أم حرمنا هاي شيء وحاول فنان ده كم وجنا من الشعور تانجا إن كحنا هاي عادة شيء حنون كبدن أكون عادي ولكن أسعجيو سو كله waxaan leenahay waxaan u rajeynaynaa insha Allah caafimaad taam ah xabadii leegu dhuftay xinjirtii leegu qubay xubnihii leeytray xabaal u maan galin anigu xay baan ahay xidig jir ayaan ahay dadkii xabaday aniga xabaal ayay jiraan dadka xabadina xusul duub hajarina xabaalaha yaan la badin xidigaha yaan la dilin xaakimka yaa maxaan xabaaday ku nahay xiinkaaga maxaan necebahay waxaan xabaaday ku nacay dhibaatada adduunyada ninna lama aysan dhalanin dhaxal waarid ma aho lama kala dhaxlaayay waa dhacdooyin taxanoo dadku wada dhadhaminayaan oganiyo dagaalka xigaalada jiraha daadsaniyo xasuuqaad sababu tahay dhaayaha mid baa tiran mid baan dhaga lahayno aan dhageysan karin hadal xasaradaha oganiyo dagaalka xigaalada jiraha daadsaniyo xasuuqaad sababu tahay dheeftii mid baa gabay oona dhuunta marin karin qaar baa dhiigkar qabo oo dhiigga boqol tagaya mid baa dhimir lahayno aana waalidkii garan adaa xasiloonidiyo abaal nabadii ku riday maxaan xabaaday ku nacay daraartii August dhacdadii xumeed iyo dhaawicii ku gaaray amba waan ka dhiidiyo oo dhaawac baan qabaa dhibtaan kula dareemaa dharaar qura ma moogani xaalku siduu yahay adna dhinaca qayrka iyo mar walba wanaag filo dhibtu baaqi maahe dharaar qura ma moogani dhibibada u taago oo dhaxda giijo xiro mar uun wad dhaqaaqiye mar uun waad dhaqaaqiye walaalkay Asad insha Allah mar uun waad dhaqaaqaysaa anakana dhibaatada ku dareemoona intaan waxa u soo istaagnay inaan maxaan dhahay kula qaadano murugada iyo dhibaatadii dhacdadii xumeed oo ku gaartay 27 August waa maalinta aad sababsatay inaad weli jirkaad ku fadhiisato adigoo lugaha ku socdo waana dhacda iyo muruga aad u xun sida uu jeedinay khayradeeda ayaa meeshaan soo istaagnay
marka waxaan ku rajaynaynaa inaan mar uun dhaqaaqdo إن شاء الله بإذن الله الكريم. marka walaalkay Asad Hagio waxaan ku rajaynaynaa cimri dheer iyo caafimaadsan waxaan rajaynaynaa inaad maalin aad lugahaada ku socoto adoo caafimaad qaba nin howlkar waa tahay dad badan oo lixdooda lixaad qaba ka shaqo baan tahay waxaan ku leenahay walaalkay ka goyn horumar wacan hortii inta ma soo istaagna video inta iska duubna buuqno ama maxaa dhahay iska hadalno waxaan soo istaagnay dareen iyo shucuur naga muuqato inaan soo istaagno halkan maxaa la dareenkeena ku muujino kan anig ahaan hadda kasoo gudbo 27 August 27 hadda kasoo gudbo afwan hadda hadalka qaada yaraale laqada because laabta ka dareemaya xanuun runtii aniga horta maxaan dhahay waxaan daawaday dokumentiyadiisa inta badan oo maxaan dhahay sanadadii hore oo soo sameeyay hawo ugu dambeysay hadda oo 19 wallahi marka arkay aad iyo aad waan u ilmeeyay waan uga xumaado waan u qiirooday saastay tahayne qiiradaas oo i gashay mar oo waxaan jeclaan jiray inaan la wadaago waan la wadaagay maanta sida wada jeedaan iyadoo mid oo bareefad ahaan aan la wadaagay maantana si public ah la wadaagoya dartiis u soomay 3 maalmood oo sharuud ah oo shardi ah inuu ilaahay lugiisa ku socodsiiyo haddana insha Allah waa rajeynaa lugiisa ku socon doono marka asxaabta muuqaalka intaas kusoo gabagabeynayna runtii ishigii waxa runtii ishigii waa arrin aad dhacdadaas waa dhacdo aan aad ugu xunnahay ka team 27 ahaan waxaana ishigii xilligan la joogo u rajeynaynaa walaalkeen caafimaad buuxo oo tama insha Allah